عالم كودا ومال عانو عدل نسي عيدا عيدا ما انت عيد ونكسا عيدا عالم كودا ومال عانو عدل نسي عيدا ما انت عيد ونكسا عيدا عزي وشرفي فرحتك وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام ولا له خالقه qiimaha badan sharafta badan dunida daafaheeda meel walba aad joogtiin oo xilli walba idin tahay waxa walaashin Maryan Ruun channelka naga daawaneysaan waa Maryan Ruun official marka waxa idin leeyahay soo dhawaada asxaabteeda qaaliga qiimaha badan aan jeclahay hadii ay tahay markii kuugu horeysay oo channelkayga soo booqatay subscribe leh gambaleelkan on ka dhiga si oo ku soo gaaro video walba aan soo galiyo insha Allah asxaabta hore ila joogteen waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin daawashadiina ku xirnaanta channelka waxaan idin leeyahay videoga like garee share ku dhaaf asxaabtiina commentigana waa xaqiina wixii talo iyo tusaale ay haysiin iyo la soo wadaaga insha Allah marka waxa maanta idin wadaa hadoo alle idma insha Allah waxaan ku gudu jirnaa wili macmacaanadii ciidan ku gudu jirnaa maanta waxa idin wadaa buskuda idin wadaa laba nooc oo buskuda idin wadaa intaano sheeyaan meesha ku heystaa u jeedin marka waxa meesha ku heystaa buraan ku heystaa waxaan kaloo meesha ku heystaa ukun waxaan kaloo meesha ku heystaa sokor waxaan kaloo meesha ku heystaa caano booro waxaan kaloo meesha ku heystaa bakin waxaan meesha ku heystaa cacao powder ama chocolate powder ka ah meesha waxaan ku heystaa vanilla meesha waxaan kaloo meesha ku heystaa heel waxaan kaloo meesha ku heystaa saliid waxaan meesha kaloo ku heystaa buluug baan waxaan kaloo ku heystaa heelka marka hadeertaan waxaan ku soo shubay weelki waxaan ku soo shubay sokortii aan ku soo shubay marka sokorti waxa waaye buskudka aan sameeysanayna waxa waaye kiilo iyo bar waaye marka kiilo iyo bar oo bur ee marka sameeysanaysid sokorta waxa ku shubaysaa nus kiilo iyo rubac kiiladii waxa lagu daraa buskudka nus kiilo lagu daraa marka hadda aan kiilo iyo bar sameeynaya waxaan ku soo daray nus kiilo iyo rubac sokor waxaan kaloo ku soo daray 3 xabo ukun aan ku soo daray marka hadeertaantii saddexaad aan ku daray hada meesha waxa igu jirto sokorti iyo waxa igu jirto iyo ukunti hada waxaan ku soo darayaa waxa waaye carfiso waaye vanilla qof walba soo u yaqaano carfisada oo buskudka waaye hada waxaan ku soo kaloo darayaa heelan ku soo darayaa hal qaando oo heel shiidan aan ku soo darayaa heelka shiidan waaye oo ku imaaday soo shiidan oo caagagta ku jiro waaye sida u jeedin marka asagan waxaan ku darayaa hal qaando oo heela hadan ku soo daray marka hadan waxaan kaloo ku soo darayaa caano waaye hada waxaan ku soo daraa caano booro powder waaye marka hada waxaan ku soo daray hadan waxaan ku soo darayaa waxa waaye laba qaando oo waxa waaye walaango ama waxa konfaloor ama nasha qof walba soo u yaqaan marka hada waxaan ku soo darayaa buluug baan aan ku soo darayaa marka buluug baankan aan wado waxa waaye caaga oo nus kiilada waaye marka waxaan ku soo darayaa haafkiisa aan ku soo darayaa buskudku waxa caraf iyo waxa inoo meesha bedelkiisa saliid waa gasho kartaa subaga bedelkiisa waa gasho kartaa marka haaf aan ku soo daray oo buluug baan marka caaga haafkiisa waa hada waxa aan ku soo daray waa kaas garaamkiisa waa 500 oo garaam marka waa nus kiilo haafkiisa markii laga dhigo waxa waa hada rubac camal aan ku soo daray marka hadeertaan hadan waxaan ku soo darayaa wax yariis oo bakin aan ku soo darayaa baking powder hadan ku soo darayaa weelka waxa igu jirto sokorti caanihi ukunti carfisadii heelki subagi iyo hadeertaan aan ku soo daray waxa la dhahay bakinki aan ku soo daray marka hadda intii shay aan ku soo wada daray waxaan kaloo ku soo daray magaciisi waxaan ku soo daray laba qaando oo waxaan ku soo daray walaango marka hadeertaan waxaan ku soo darayaa wax yariis oo cusub waaye oo qaandada haafkeeda marka hadda waa qaseena wixii dhan marka isku soo daray ukuntii subagii maxaa lahaay sokorti walaangadii bakinki heelki
subagi marka hadeertaan waa isku qaseynaa intaana isku qaseynaa si fiican isku soo qaseynaa waa isku soo dhalaalinayna ukunti dhacaankeeda iyo wixii maxaa la dhahay subagi iyo sokorta wixii dhan iyaga biyo noqonayo waa ujeedin hadda marka isku soo qasay marka si fiican isku soo qasaya markii hadda sokorta ay noogu dhalaasho oo sokorta dhan ay milmato oo gacanteeda aan ka waayo marka hadeertaan hadana waxaan ku soo daray haaf oo bakeeriga haafkiisa oo waxaan ku soo daray saliidaan ku soo daray hadda subagi oo ahaay hadda marka xoogaa saliidiyaan ku dhameystiray oo waa ogtihiin hadda 2 kiilo kale oo buskut marka la sameeyay waxa loogu talagalay in nus litir saliid oo kale in lagu qaso marka hadda saliidi waa ka yareeyay laakiin hadda waxa u badan subagiya u badan oo hadda waxaan ku soo daray rubac oo waxaan ku soo daray magaciisi subagi aan ku soo daray buluug baanka waa iska subag marka haafkiisa aan ku soo daray hadda nus kiilo ahay caaga haaf aan ku soo daray hadda rubac ahaan uu soo daray marka hadda wax yariis biyaan ku daray hadda wixii waa isku soo dhalaaliyay sokorti caanihi subagi ukunti wixii dhan oo hadda oo nafaqo aheed oo buskudka lagu daray wixii dhan hadda waa ku soo dhalaaliyay hadda waxaan sameynayaa waxaan ku soo shubayaa burki aan ku soo shubayaa hadda alla idma insha Allah hadda burki waa kaas burki hadda ku soo shubayaa kaskisa uu soo shubayaa hal mar ma ku soo wada shubaayay marka si oo si fiican oo noogu qasmo marka hadda xoogaha aan ku soo shubay waa ku qasaya hadan inta kala gadaala ugu darsaneena mar walba kaskisa ugu dareena wixii waa isku imaanaya markaas ee qiyaas ahaan buskudkii adeegna ma ka noqonayo biyan ma ka noqonayo si fiican oo ku qasmaya marka hadeertaan tartiib uu soo daray hadda qaybta hore burkaan ku soo daray si fiican uu soo qasaa marka ma sha Allah wuxuu kaas hadda markaan soo qasay waa ka hadda wax yariis oo subageena caadiga ahaay subag caadiga oo sixinta caadiga oo xoolaadka wax yar aan korka hadda uu soo daray marka xoogaa waa ku cajimaya waxa la rabaa buskudkeena ma sha Allah caraf khatar inoo noqdo buluug baanka asba carafo leeyahay waxaan ku dhahay heelkii carfiisada wixii dhan markaan ku soo daray hadda oo soo qasay waa kaas waa soo qas waa ujeedin hadda kiilo iyo bar waaye sida ay ujeedin marka hadeertaan waxa hadana kor wax yariis oo subag oo caadiga oo subageena xoolaadka aan korka ugu soo shubay marka subagiya xoogaa hadda aan ku soo cajimaya waa kaas hadda saas oo waxa u soo diyaarinay buskudkeena oo liisha ah u soo diyaarinay ma ahan adeeg ma ahan biyana ma ahan ma sha Allah wixii waa isku dheelitirmeen hadda marka qaybtaan waxaan ka soo dhigay buskud sabiib aan ka soo dhigaynaa waa soo kuuskuusay sidii oo maxaa la gacmaha ayaan ku soo sameeyay sidii oo muufada camala u soo balbalaarinaysa balaar oo khafiifna ma ka dhigaysid culaasna ma ka dhigaysid waxa ka dhigaysaa qis oo adag oo qiyaas marka hadda sabiibkii aan dhaxda u galgalinaya marka buskudkan waa buskud sabiib ma sha Allah oo dhaxda laga galiyay marka buskud sabiib la dhahaa ma sha Allah waxaan ku dhahay dhow markii la dubana wuxuu noqonayaa doolsho ma sha Allah macaan badan oo noqonaya quruxna waay marka waa kan aan qaybtaan hadda waxa uu soo sameystay buskud sabiib aan qaybtaan uu soo sameeyay hadda saxankii waa soo wada saaray marka xabad sabiib aan dhaxda ka gelinaya hadii rabtid hadda marka sabiibka saan aa ugu galisid wax yari sokor korka meeshaan hadda sabiibka geesigiisa ugu daadi kartaa laakiin aan hadda sokorta ma sameeynin hadda waxa bis aan dhaxda ka soo gelgelinoya sabiibka kaliisa taa marka ka soo galiso decoration qurux badan oo kala aragoo noqonaya buskudkan waxa si qurux badan oo soo baxa hadda markii la dubo ma sha Allah waxaan ku dhahay kala arag sabiibkiisa dhaxda marka ugu jiro waxaan ku dhahay indhaha ka soo jiidanaya aad u qurux badan yahay markaan qaybtaan waxaan ka soo dhigtay buskud sabiib qaybta kale buskud nooc kala ka dhiganayna buskud oo waxa dhinacna shukulaato ka dhinacna oo caadi ah ka dhiganayna hadda qaybtaan hadda saas ku soo dhameeyay kulli waxaan soo galgaliyay sabiibkii aan soo galgaliyay hadda saano diyaar noogu yahay ofinkaan gishanayna kadibna qaybta damba u gudbeena insha Allah hadda waa kana waxaan gelinayaa waxaan foornadii aan gelinayaa ama ofinka qof walba soo u yaqaano hadda waa kaas foornadii aan gelinayaa marka oo noo bislaadan waa isla arkeena insha Allah waa kaas hadda foornadaan soo galiyay ma sha Allah marka oo noo soo bislaado sida oo soo baxay iyo quruxdiisan waa isla arkeena hadeertaan waa isku soo laabaneena insha Allah
وصل دعيدا marka waa kana hay asxaabe buskudkeen waa noo soo bislaaday kalarkaas quruxda badan aan ka soo dhiganay madowna ma ka dhigin guduud maasha Allah oo iftiin ah oo biseel ah aan ka dhiganay waa kasaas quruxda badan oo noo soo baxay sabiibkeenin waa ka sida dhaxda u gali waa u jeedin marka hadda qaybta kala u soo gudubay hadda qayb kamid ah buskudkii oo qasnaa cajiinkiisa soo qaatay waxaan ku soo daray laba qaando oo waxaan ku soo daray cacao powder ama shukulaatada oo qaleelka ah aan ku soo daray marka oo powderka ah marka qaybta waxaan ka dhigaynaa qayb oo shukulaato oo madow ka dhigaynaa qaybta kalena cadaan marka waa isku dhax sameeynaa waa kana hada markii aan ku soo qasay shukulaatada markaan ku soo qasay waa kaas qaybtan saasa shukulaatada uu soo qasay marka hada bacdaas ku duubanaya bacda oo cuntada oo weelka afka loogu xiraayo waaye marka hada qaybta kale hadan soo diyaarsanaya waa kaas qaybtaas hada waa shukulaatadi marka waa ka buskudkeen saasa u soo diyaarsaday marka qayb waxa axda cadanka galiye geesahan shukulaata ka dhigay marka couscous yaryariisa ka soo dhigaysa wax dhan waa isla soo eekeysiinaysa marka isla inay kala weynaadaan mal rabo isla soo eekeysi marka geesaha waxaan ka dhigayaa 6 aan ka dhigayaa 6 kuus aan ka dhigayaa midka dhaxda 7 ku ah marka waa kaaseeti dhaxda hadda midkan cadaan oo ka yahay geesahana wuxuu ka yahay shukulaato qaybta kafeega ah marka qaybna waxaan ka dhigaynaa dhaxda oo kafeey ah geesahana cadaan aan ka dhigaynaa saasa isku dhaxireenaa maasha Allah buskudka markii saan loo dubo oo waxaan ku dhahay oo saxanka la isla saaro qurux maasha Allah decoration wax ku dhibay maaha qad waxa ku sameynaysid ma wax gacantaada ku sameysanaysid waxaan ku dhahay buskudka burkiya waxa soo waxay jarjaraysaa si yaryariis oo murxaha bunka camal oo kale sida bunka oo kale oo yaryar ya camal ka dhigaysaa waa soo yaryareynaysaa ma sha Allah marka kulligood waa isla eekeysiinaysaa marka isla eekeysiisid waa ka saas isku qabanay marka oo saas isku saas u sameysid markaas waa isku riixaysi oo hadhow buskudka isku qabsado hadda waxaan soo qaatay istakiin aan soo qaatay wax yariis waa ku riixriixaya si oo waxa decoration ahana uu sameynaya si sak ah uu sameynaa waxaan ku riixriixaya istakiin waa waxa aan ku riixriixayo markii la fiiriyana ubaxna waa uu eg yahay ma sha Allah si qurux badan waaye ma sha Allah oo kaali arag ah waxaan ku oo dhib badneen oo adigana ku dhibeen oo nashqad ahayn gacantaada ku sameysanaysid oo kaali arag qurux badan marka qaybta kale waa kana oo cadaanka ah xabadii oo kafeega dhaxda ka gali maadaama meel oo kafeey oo yahay qaybtan hadda kafeey aan ka dhigo dhaxda cadaan oo ka yahay qaybtan waxaan ka dhigaa cadaan oo dhaxda kafeey ka ah marka hadeertan waa soo diyaarsanay waxaan gishanaynaa ofankeena gishanaynaa waa soo duweynaa marka soo bislaadana sida oo ku soo baxo waa isla arkeena insha Allah hadda foornada soo gelinaya waa soo duwaya marka soo bislaado oo dubmo kadibna waa idin tusaaya insha Allah waa isku soo laabeynayna hadoo alla idmo asxaabe waa kana hay buskudkeen waa noo soo bislaaday marka hadda markaan ofinka ka soo bixiyay waa ka saas oo ku soo baxay waxaan ku dhahay qaybtii kafeeyga ahayd iyo qaybtii cadaanka ahayd saas quruxda badan oo ku soo baxay maasha Allah marka fiirisid ubax oo eg yahay oo fiyooro maasha Allah aad u qurux badan yahay hadana qaybtaana waa kana qayb cadaan ah waay dhaxda waxa ugu jiro qayb kafeeya ugu jirto asna saana u soo diyaari marka kuustid marka kor waxa hadda decorationka waxa ugu sameeyay farkeetida oo wax lagu cuno waa farkeetiyan aan korka uga soo riixay markaasna saas qaybtaan saas quruxda badan aan soo dhigo waxaan ku dhahay wax iska fudud waay oo gacantaada ku sameysanaysid oo wax nashqad aan kaaga baahneen waxaan ku dhahay kaale arag hada qaybtaan cadaanka dhaxda kafeeya ugu jiro qayb oo madow ugu jirto asagana hadeertaan qaybtii ugu dambeysay waay qaybtaas markaan dubo wixii oo soo haray waay hada asaga saxanka buuxo saxanka xoogaa haaf camal waay waa iska haaf waay qaybtii ugu dambeysay oo soo hartay waay marka waxaan asna qaybtan saanaan ka dhigay marka waxaan ku dhahay kiili barkeega buskudka waxaan ku dhahay intaas oo noocan ka dhigto ma sha Allah mid walba saxankaaga marka saaratid waxaan ku dhahay kaal arag qurux ma sha Allah waa kana hadda cadaanka iyo kafeega marka saxankiisa soo saaray saas quruxda badan oo ku soo baxay waxaan ku dhahay wax oo dhib badneen oo ma sha Allah oo iska fudeed waay adigana ku dhibeen oo easy oo aad u qurux badan marka gacantaada ku sameysatay waxaan ku dhahay foorna aadan saf u galin ma sha Allah ma da foorna heesanin hata geed lagu duwada heesanin daba ku duba kartaa
waxaan ku dhahay saxamo inta diyaarsatid oo kor weel oo waxa daboolay oo maasha Allah marka u raadsatid maxaa la hoos dhan dabka ka aruurisid oo kor ka saaratid waxaan ku dhahay mar walba waa controleysa amaba u baahnid foorna iyo waxaan ku dhahay feel iyo waxaas maba galeysid qaybta kale hadana waxaan idin tusayaa oo sabiibka dhaxda aan ka gariyay sida quruxda badan oo soo baxasna waa kana maasha Allah saan quruxda badan oo soo baxa waxaan ku dhahay sabiibkiisa dhaxda ugu jiro kaala arag aan ku dhahay qurux waxaan ku dhahay caraftan ma laga sheekay kar markii la dubayo waxaan ku dhahay buluug baanki iyo subag iyo waxaan ku dhahay carfisadii heelki markay isqabsadeen waa laga yaabaan ku dhahay ma laga sheekay kar maasha Allah aad u qurux badan yahay idinkana asxaabteeda waxaan idin leeyahay ka faa'iideysta insha Allah tijaabiya ka warkeena wax walba waxa waaye baroobe iyo tijaabo waaye marka wixii marka baroobaysid aad dareemaysaa qiimihiisa inuu wax tar leeyahay in kale marka idinkana waxa idin leeyahay baroobe waa walaashiina Maryan Ruur oo maanta idinkugu tala gashay fiidiyogan quruxda badan buskudkan kala nooc ah maadaama aan ku guda jirno wili macmacaankii ciid diyaarintiisa marka maanta waxaan idin wadaagayaa buskudkan quruxda badan oo labada nooc ah waxa idin leeyahay meel walba aad joogtiin ciid mubaarak wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh